horyaalka wajeer ee Governor Super Cup wuu soo dhamaaday. Al Ansar iyo Al-Shabaab ayaa saaka ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ku soo bandhigeen garoonka Wajeer Stadium. Waa ciyaartii daawadayaasha ugu tirada badan abid ay ka soo qayb galeen 90 daqiiqo oo ciyaarta cid shabaqeeda la taabtay ma jirto. Labada kooxood indhaha ay isu shiteen oo koox walba waxay doonaysay mar koobka in ay gacanta ku dhigto. Rigoore ayaa la isla aaday waxayna ugu dambeyn guusha raacday oo koobkii Champions-ka gacanta ku dhigay kooxda kubadda cagta ee Al-Shabaab. Farxadda iyo reereynta ciyaartooyda iyo taageerayaasha Al-Shabaab lama soo koobi karo maanta. Sidaas ayuuna horyaalkii ku soo dhamaaday. Horyaalka Chabadimba ee Safaricom waxaa saaki finaalka gobolka lagu ciyaarayay Garissa. Xidigaha Wajeer iyo Garissa ayaa ciyaarayay waxaana ku guuleystay Chabadimba gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Kooxda xidigaha Wajeer waxayna gobolka u matali doonaan tartanka qaranka. Maro Faadimo Cabdi Jeexow wakiilka dumarka ismaamulkan Wajeer ayaa barteeda Facebook soo dhigtay in ay ka farxin doonto ciyaartooydaasi. Halkaasi ha nooga ekaato aan u gudubno horyaalka Ingiriiska. Arsenal waxay xalay ku tumatay kabahana la dulmartay kooxda Newcastle. Waa xanaaqi loo qabay FC Porto oo Arsenal Champions-ka kaga soo reysay. Difaac Arsenal Gabriel ayaa goolka koowaad u bilaabay Arsenal. Waxaa ku xigsaday Kai Havertz oo ciyaarta 2-2 ka dhigay. Xidiga madow ciyaaryahanka baalka midig ee Ingiriiska Bukayo Saka ayaa goolka saddexaad u xilay Arsenal, halka Kiwiorna uu u soo gunaanaday ciyaarta oo markaasi dhaliyay goolka afaraad. Newcastle hal gool ayay xiratay balse ma ahayn mid waxtar leh. Ciyaarta Arsenal iyo Newcastle waxay ku soo idlaatay 4-1. Aston Villa 4-2 ayay kaga badisay kooxda Nottingham Forest. Brighton iyo Everton bareejo 1-1 ayay ku dhamaatay. Crystal Palace 3 ayay kaga badisay Burnley. Kooxda Manchester United waxaa ka badisay Fulham oo waxay ku soo dhamaatay 1-2. Kooxda reer Etihadna hal gool ayay kaga adkaatay Bournemouth. Falanqaynta ciyaaraha Wajeer gobolka Waqooyi Bari iyo horyaalka Ingiriiska waa naga intaa. Aniguna waxaan ahay Xasan Ayman.